Masuuliyiin ka tirsan Dawladda Puntland ayaa kormeeray howlgallo lagu burburinayo dhismayaal si sharci darro ah looga dhistay wadooyinka laamiga ah ee magaalada Garoowe. Dawladda hoose ee degmada Garoowe ayaa mudooyinka waday qorshayaal lagu burburinayo dhismayaasha sida sharci darrada ah looga dhistay iyo xarumaha danta guud ee loogu adeego bulshada. Xogayaha Dawladda hoose ee degmada Garoowe Maxamuud Cali Guray oo ku guda jira howlgalka duminta dhismayaasha ayaa ka warbixiyay halka uu u marayo howlaha ay ka wadaan caasimadda. goobtaani waxa weeyaan saaka aynu taaganahay waxaan unintii dadweynaha wax looga sheegi jiray dawladdii Maxamed Siyaad Barre darbigeedana waxaa noogu dameysay waqtigii dawladda Maxamed Siyaad Barre dhacday laakiin nasiib wanaag saaka waxaanu taaganahay darbigii hanuuninta halkan waxa weeyaan waa goob dawladeed dadka iyo dadweynaha looga adeegi jiray haatana waxa loogu baahday in loogu adeego intii lahayd waxa meesha ka baxay oo kaliya dadkii danta gaar ahaaneed ku watay ee ku danaysanayay intii ku danaysanaytana waxaan leenahay shacabkana waxaanu ka codsanaynaa inay iska cafiyaan dadka annaguna ayagana waxaanu leenahay ilaahay meel kale ha uga cuqul celiyo wax kale ha ka siiyo hadee waanu ku faraxsanahay shacabkayaga iyo dadkayagu siday noola shaqeeyeen ama midka dawladduna waa fulin hantida dawladduna gacanta dawladda in la soo gashaa muhiimadoodu intaa weeye waxyaalaha dawladda loo samaystay ka mid tahay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqadiina waad aragtaaniin meesha maraysa waad aragtaaniin shacabkaygu waa nala shaqaynayaa. Taliyaha Ciidanka Booliska Dawladda Puntland General Muxyidiin Axmed Muuse ayaa dadka degan xarumaha dawladda ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamirta dawladda isagoo ciidanka faray in ay shacabka ula dhaqmaan si qadarin ku dheehan tahay. dadka wali xoogaa isdheega adkaynayana waxaan leeyahay u hoggaansama oo cid kastaahi ha u hoggaansato sharciga ha u hoggaansanto bilicda magaalada ha u hoggaansato dib u dhisidda ha u hoggaansato howlaha socda oo dib u habeynta magaalada ciidamaduna waxaan leeyahay ha u dhibriyeen dadka si wanaagsan ha loola dhaqmo mar walba ha la tixgeliyo codsigooda ciddii cabasho qabtana ha noo timaado mar walba aanu meeshaan taagno saacad walbana waa joogaa ciddii cabasho qabta ama dhinaca ciidanka ka qabta ha ii timaado. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Arrimaha Diinta iyo Dastuurka Dawladda Puntland Cawil Sheekh Xamuud oo ka hadlay goobaha ay ka socotay dhismo dumistu ayaa u mahad celiyay guddiga loo xilsaaray dumista goobaha danta guud. hawshu waa socotaa sida generaalku idinku warbixiyay si fiican bay u socotaa waa u jeedaanin dadkii si fiican buu noola shaqaynayaa guddigii meesha u magacawnaa tasaabsi u socotaa hawshu alxamdulillah anaga shacabku wada shaqaynaynaa wax dhibaato ma jiraan waa ismaqlaynaa xaaladda waa dejinaynaa qof kasta waxa ka go'an magaalada wanaageeda iyo quruxdeeda inuu soo celiyo iyo meelihii dawladdana gacanta dawladda dib loogu soo celiyo marka dadku raalli bay ka yihiin. Suwayska Cayte warbaahinta dawladda Garoowe.